hodheelo lagu tumanayo la tumayo muusig laga tumayo oo ummadii isku dhex jirto intaasoo boqol oo qof ay isku dhex jiraan ilaahay subxaanahu wa ta'ala cid uu kala xisaabtamaya annaga weey dadka meheradaha li haday xishoon waayeen wallaahi billaahi tallaahi gacan baan wax kaga qabanay ka xishoon meen wallaahi inaanan ka xishoonin laba xaalo midna uga xishoon meen in ragiya hablaha yagi yaryara dadkani kama imanin siralaanka kama iman hablaha yagi yaryara nimadeedii yaryara inta qol la isugu geeyo in muusig loo tumo ma dhacayso wallaahi ma dhacayso mid kalena kaga xishoon mayno ummadii oo la yiri kala fogaada in qol yar inta la isugu xareeyo la yiraahdo halka ku tunta la yiraahdo ma dhacayso dadka aan xishoonin gacantaan wax kaga qabanin mana dhacayso in habeen dambe la yiraahdo halkan muusig lagu tumayaa dhici mayso annaga ilaahay subxaanahu wa ta'ala na weydiinaya dadka sufahada waxa ay sameeyaan wayna wada camimaysa dambigeeda wayna wada camimaysa wattaquu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa xafladaha kale ama musharaxiin ha ahaato ama aroosadan laga buuqo ha ahaato wareegtana waanu ka soo qoraynaa haddii aanu gobolkiina iyo haddii aanu degmadiina hayba waanu ka soo qoraynaa waana shaacinayna warbaahintaanu ku shaacinayna kuwaasina jiri maayaan in marna la canaanto la yiraahdo COVID-19 kii waxba laga qaban maayo wasaaradii caafimaadku shaqayn mayso gobolkii iyo degmadii iyo maayarkii iyo barasaabka shaqayn maayaan halkan inta 100 caruur iyo 100 inamaayo 100 haween la isugu careeyo la yiraahdo ku tunto halka maanta oo dhan bariya ruuxa masuuroobis waxa reeban waxaanu haysanaa diinteena islaamka baynu haysanaa gobolkeenu diinta wixii fusuq ku keenaya uu la dagaalamaya waxa mamnuuca inako xanuuna la tiicayna inuu geesna ka toona ama inuu dhaans ka ciyaar waxyaabii jimcaha hudheelada kamida magaalada ka dhacay waa mamnuuc jimcaha dambena la isku imaayo ciidanka booliiskuna waxay ku amrayeen inay joojiyaan haddii hudheelkaasi joojin waayna ruqsadda lagala noqonay qolada wanaag farista iyo xumaan reebista waxaan sheegaynaa inay meeshii caynkaas oo kale ah aynu soo gaarsiiyaan oo soo gudbiyaan